حسن شيخ محمود وسي دبر وين يسعيد عبد الله يسي دبر وين oo kaamirad laga duubay ayoo gabar yar imaaraadka ku dhanbacaan ceeb Allah asturo hadaad maqashid waxa jira dawladda imaaraadka ayaa waxay ku goodisay hadii madaxda Soomaalidu ay orodka joojuwayaan inay muuqaala anshax xumahay hore uga duubeen baraha bulshada ku baahi doonaan meeqa jeer baan idin sheegay aniga madaxdanada in rikaata lagu haysto meeqa jeer baan idin soo bandhigay dhibaatooyin ku dhacay madaxdanada markay imaaraadka istageen oo isku qaab loo jir dilay Xasan Sheekh Maxamed inta la madoobeeyay wasiir Bayle la madoobeeyay inaan ku habsaami doon maayay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaa wuxuu sheegay madaxda Soomaalidu haday joojuwayaan challenge-ga ay kula jiraan imaaraadka iyo go'aamadii ay gaareen haday ka laabo waayaan inay baahi doonaan muuqaala anshax xumaha ay ka duubeen anigu waxaan sugayaa ilaahay baba keenay Xasan Sheekh Maxamed iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe iyo kuwa aada beesha maxaa ku sawiran aniga sawirro badan baa ii soo baxaya mar waxa ii soo baxaya madaxda laftirka marna waxa ii soo baxaya madaxda oo gabdho yar yar oo 15 jir ah hoteelada kula tumanaysa marna waxa ii soo sawirmaya ayaga ورمضان هذا عافتنا الله أسطر والله وبالله وطلع هوريا وحنو أجا إماراتس إنه مدحنا نضع فركهايو سؤال هذا كوسا قاعدنا يا دولة فترة هالك إماراتس حرير كيو جويسي واي سعيد عبد الله الدني لوجو عيالولي إماراتس إما وضورة يا هدام فرع لجهنين معودي لا ياهي ذلك يجو قد يدبوا لي هاي دولة فترة هالك ذلك يجونا دولة إماراتس حرير كيو جويسي أنا جاي دولة فترة هالك وحنا إسكو هاي سنة waxa ka weyn Soomaalinimada ka weyn waxaan isku haysano goonidan isku haysanayna laakiin aniga masiirka ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalkan ku mowqif ah Saciid Cabdullaahi Dani muxuu dhihi waay shalan idin sheegay go'aanka wasiirada Saciid Cabdullaahi Dani lagu burinayaa sayana loo wacaya waa kaas imaaraadis u dhaafay maanta dawladda imaaraadis waa cadawga kaliya ee Soomaalidu ay leedahay dadka Soomaaliyeed isku baraarugsaneen dadku waxay dhahan dawladda Itoobiya cadawga Soomaaliya 5,000 jeer waxa ka nacay badan imaaraadis sababtoo Itoobiya adigay wax ka doonaysaa laakiin imaaraadis adigaysa wax kula dooneen baad u fiirso midna adoo wax ka doonaya midna adiga uusan waxba kula dooneenin dawladda imaaraadis ka raali kama ahaanayso Soomaalidu nabad inta hesho taariikhda hadda caalamku adeegsado ee 2026 ka maraysa 2500 BC koor ayaa dhulka waxa loo yaqaanay Puntland hadda Puntland way isku dhagsadeen iyagu laakiin waxa ay land pot ay ahayd Nabi Ciise calayhi salaam koor hadda ma diinta muslimka hadda ma diinta masiixiga koor ayaa dhulkaas land pot loo yaqaanay Puntland yani hadda ay u badasheen xilliga marka hadda buugaagta la akhriyo waxa ku qoran in dhulka laga heli jiray beeyada iyo fooxa iyo malmalka caloolo iyo boosaaso iyo aagaas waxay ahaa jireen dhulka ugu wanaagsan ee adduunku ganacsiga oo kula kala wareego ee Afrikaanka iyo Eeshiyaanka iyo Yurubiyaanku ay ku kulmaan Carabtuna waxay u yaqaaneenba dhulka uduga hadda taariikhdan ka hadlay taariikh dhowmaan waa kugu soo celinaya 2500 oo BC koor taariikhdan adduunku isticmaalo oo nimanka gaalada hadda ay noo dajiyeen ku salaayeen dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam 2500 sano ka hor xilligaas marka imaaraadku ganacsiga anagu aan lahayn oo la wareegi mana doonayo dawlad sax ah inay halka inta ka dhalato inuu ganacsigiisa waayo waana sababta oo wax kasta ugu bixinayo Soomaaliya inay sameesheeda ka dhaqaaqin muuqaalada la sheegayo maxay noqon karaan fikirkaada oo nadiif ah waxay noqon karaan madaxdanada oo gabdho yar yar inta loo keenay la tumanayo oo kaamira laga duubay mase madaxdanada laftirkeeda oo la farxumaynayo warka in la sheego ceeb ma Xasan Sheekh Maxamuud oo si dhabar weyn iyo Saciid Cabdullaahi oo si dhabar weyn oo kaamira laga duubay ayoo gabar yar imaaraadka ku dhanbacaan mase qaybtoos oo comment-iga kugu sugaya muuqaalka la aksar siin share garay intaas adiga ku fududahay anigana waa faa'iidadeeda